بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa radio kulmiyo iyo shaqaalaha iyo wariyaasha dhamaantiina waa idin salaamaya xaaladda Sheekh Mukhtaar oo markay ii sheeg marar badan saxaafadda aan ka maqalnay inuu xanuunsan yahay keli laga hayo waxa soo dhan waxaan ka maqlaynaa saxaafadda sida aad la socotaan ba Sheekh Mukhtaar Roobo oo caafimaad qaba 13kii bishii December sanadkii laga tagay 2008 ayaa magaalada Baydhabo waxa ka soo qafaashay ciidamo Ethiopian oo u adeegaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas ay diyaarad uga soo qaadeen Muqdisho ayay keeneen asagoo fiyo caafimaad qaba keli laga hayo oo aan ogeyn aan jirin hadii uu hadda xanuunsan yahay ama xanuun lagu arko ama uu ku dhinto waxaa laga rabaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abiy Ahmed ayaan uga fadhinaa ninkaas oo fiyo waxaan caafimaad ahayn oo aan ku ogeyna ma jirto marka marna ma isku dayday inaad ogaataan xaaladiisa markii warbaahinta ama xogaha oo baraha bulshada aad ka hesheen inuu xanuunsan yahay dad badan baa isku dayay inay ogaadaan oo ehelkii ah aqrabadii ah odayaashiisa ah xildhibaanadiisa oo ka soo jeeda koonfur galbeed waa loo diiday waxaan ku sheegayaa saaxiib xitaa in mid kamid ah xaasaskiisa oo caruur u haysa ay magaalada Muqdisho ay degan tahay loo diiday inay booqato oo ay aragto ninkeeda marka wax oo aan Mukhtaar Roobo caafimaad qab aan ahayn oo aan ku ogeyn ma jiro keli laga hayana intaas sanaan isnaqaanaa Sheekh Mukhtaar Roobo aan isnaqaanaa weligeena maxay soo keli laga hay maanan maqal asagoo meel ka xanuunsan ma maqlin hadii lagu arko xanuun hadii lagu arko maxay ahayd isag la soo sheego dhimasho hadii wax kale la soo sheego ninkaas oo fiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxaan uga fadhinaa ninka la yiraahdo Abiy Ahmed cid eelkiisa weligeed loo ogolaadayna ma jirto saaxiib inay booqato waya marka ma ogol yahay isaga oo ma loo ogol yahay inuu dad la hadlo oo telefoon iyo adeeg kale oo dadku lagu xiriiro ma haystaa ma idin wici karaa idinku ma wici kartaan qof wici karana male telefoonna loo ma ogola saaxiib waxaan ku yiri mid kamid ah xaasaskiisa oo caruur u haysa oo Muqdisho degan ayaa loo diiday in cid kale aragto iska daayay marka wax walba waa laga filan karaa waxaan ka filan karnaa inay sumeeyaan waxaan ka filanaynaa inay dilaan waxaan ka filanaynaa inay maaragtay ii sheeg kansarka bulida ah oo qofka lagu rido maskaxdiisa kii lagu dilay mid la sanaawi inay maaragtay ii sheeg cuntada ugu daraan waa ka filaynaa waa cadow oo maaragtay ii sheeg aan wax walba ka filan karno Mukhtaar Roobo wuxuu xiran yahay 6 bilood wax ka badan muddo dheer baa dadaal sameeyeen wax badan baa sameeyeen waad ku heli weyseen hadii hadda uu xanuunsado ama uu geeriyoodo dadaalkii hadda aad sameeyeen aad wax ku heli weyseen muxuu ka bedelaan doonaa waxa sameyn doontaan waxay u taalaa wax garadka ka soo jeeda koonfur galbeed iyo hogaamiyaasha xisbiga amniga iyo cadaaladda ee adduunka dacaladiisa jooga ayay u taalaa waxa laga yeeli doono Mukhtaar Roobo hogaamiye ruuxi ah waaye hadday dilaan iyo hadii kale fikirkiisa waa nool yahay wuu la shaqaynayaa sidaa dadkayna taageerayaashiisa Soomaaliya inay Finland bay daadsan yihiin marka weligiina iska haysta mana ka bari doono hadii beedmo Farmaajo wax la mid ah inuu soo daayo weligaaba iska haysta laakiin asay ku dambaysa insha Allah dadaalkii socday mar dhexe Mukhtaar Roobo lagu soo deen lahaa oo xubno baarlamaankii Soomaaliyeed oo gudoomiye Maxamed Mursal ugu weyn yahay iyo madaxweyne lafta gareen ay wadeen ma joogsaday waa kay way ka baqayaan Mukhtaar Roobo way ka baqayaan inay soo daayaan waa ogtahay in cadaaladii ay afduubeen asagoo u taagan musharaxnimada lacag kasta ay isticmaaleen waxay ogaadeen in hadii baarlamaanka Mukhtaar Roobo uu dhex tago in la dooranayo iyagoo taasna weliba afduubay oo dimuqraadiyadii afduubtay ayaa haddana waxay ka baqayaan inay soo daayaan hadii ay soo daayaan Farmaajo kan uga baqayaa uu ku fadhiyo oo beenbeenta uu hadda ku fadhiyo xamar ayuu uga baqayaa inuu Mukhtaar ku biiro hogaamiyaasha ka soo horjeeda hadii Baydhabo la soo daayo Mukhtaar Roobo la dirana Baydhabo loo dirana kan uu halkaa ku amaamuday ma jirayso marka waan iska haynaynaayo waan ku xadgudbaynaa weeye Mukhtaarkan ku xadgudbaynaa shacabka koonfurta galbeed ee ikhtiyaarkooda loo diiday ayaan ku xadgudbaynaa baa laga wadaa laakiin Farmaajo 17 bilood ayaa u dhiman annagana waan u joognaa dalkana waan isla leeyahay dastuur buu leeyahay hadii alla idmana asay ku dambeyn doonta
way ugu dambeyn mar haddaanan suurtagal ahayn inaad xogtiisa aad heshaan Sheekh Mukhtaar Roobow barihii bulshada iyo warbaahintiina aad ka helaysaan inuu xanuunsan yahay wax degdeg ah ama wax baaq ah oo aad jeedin lahaydeen oo ugu yaraan xaaladda ku ogaan kartaan ma jirtaa wax baaq ah oo aan farmaajo iyo cidda la midka aan u jeedinayno male Mukhtaar Roobow oo fiyow sida 13 bishii December baydhaba laga soo qabtay oo fiyow caafimaad qabaan ka rabnaa haddii aan weyno ama la dilo ama la sumeeyo asagaan ka rabnaa saaxib wax baaq ah aan u jeedinayo haba yaraatee ma jirto